maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Hiro oo markii u horeysay la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warramay waxyaabaha u qabsoomay intii uu joogay jagada maayirka degmada Burco sidoo kalena waxa uu ka warramay waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto maayirku waxa uu sidoo kale ka warramay cashuuraha soo xarooday iyo sidoo kale cashuuraha baaqday ee aan weli soo xaroon isagoona fariin u diray bulshaweynta ku dhaqan magaalada Burco lagu wareejiyay xarun ka kooban dad agab iyo adduun maalintiina lagu wareejiyay golaha deegaanka degmada Burco 27kii bishii 6aad bay ahayd 3 maalmood baa ka harsanaa bishii 6aad shaqaalihii dawladda hoose oo maalintaas sugayay mushaharkooda oo ah miisaaniyad dhan 587 milyan oo aan markaa la haynin waxyaabaha aan ku guuleysanay waxa kamid ah inaanu 10ka maalmood ee ka soo wareegay xilkayaga aanu bixino lacagtii mushaharka ee shaqaalaha dawladda hoose marka labaad inaanu dakhligii kordhino muddada aanu joognay marka saddexaad dhaqaalihii dawladda hoose soo galay aanu dhowno waxyaabaha wax ka bedelay 12ka cisho aanu joognay waxa kamid ah maamulkii hanaankii maamulka dawladda hoose iyo hanaankii wada shaqeynta xiriirkii bulshada waxa kale oo aanu ku guuleysanay waxa kamid ah xog dhameystiran ka helo awoodaha iyo waaxyaha dawladda hoose iyo qaabka ay u shaqeyso shaqada aanu doonayna inaanu qabanno oo 6 bilood aanu ku soo biirnay shaqada kow waxa kamid ah inaanu maamulka dawladda hoose daadejino waaxyaha degmada ay leedahay ku daadejino waaxyaha degmo hoosaadka degmada Burco afarta waaxoodii waaweyn ee ka kooban tahay isla markaana aanu xog ururin sameeyno IDP-yada iyo magaalada ilaa heer tuulo isla markaana aanu adeegii u fududeyno ilaa xaafadaha annaguna aanu adeegayagii cashuur ururinta aanu ka soo fududeysano markaan maamulka daadejino laba inaanu dakhliga kordhino oo dakhligii dawladda hoose soo gali lahaa ee baaqday ee badan ee jooga miisaaniyadii loogu talagalay miisaaniyadka kala badh ka mid aanu soo xaroonin 6 bilood hore halkii ahayd inuu 70% iyo 5 soo xaroodo 6 bilood hore dakhli kordhin marka inaanu sameeyno nadaafadda ama fayadhowrka magaalada inaanu dardar gelino ama wax badan ka bedelo insha Allah taala 3 bilood ilaa 6 bilood hore ka koowaad markaanu ka bilowno waxaan doonaynaa waaxyihii inay shaqadoodii bilaabaan sabtida wixii ka bilaabma waliba shaqooyinka ugu fudud ee ay markaa qaabili karayaan halkii markii hore shaqaalaha oo dhan xarunta dawladda hoose isugu yimayn jireen subaxii markaa kala wada shaqo tagi jireen askarta halkan ka heli jireen halkan wax keeni jireen waxaas oo dhan inaanu markaa xarumihii degmadu waxa ugu fudud ee markaa ay qaban karaan aanu daadejino sabtida wixii ka bilaabma maamulka dawladda hoose ee gudahana aanu saxno oo maayirka laga maarmi karo la'aantii shaqadu ay socon karto xogayaha oo joogin shaqadu socon karto dadka meesha ka shaqeeya qof waliba shaqadiisa uu garanayo dadweynahana shaqadoodu u fududaato waxaan doonaynaa nidaamkii fayadhowr inaan wax ka bedelo kow qashinka qaabka loo ururiyo inaan wax ka bedelo 6 bilood oo aanu kordhino gaadiidka qaadaya qaabka loo ururinayo marka labaad ee kale qalab fayadhowr in la keeno oo haday shacabka iyo anaguba iska kaashan doono oo haday tahay wadooyinka haday yihiin meelaha dadweynaha ee la iskugu yimaado haday yihiin xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada iyo ammaanka waxaas oo dhan inaanu insha Allah qalab fayadhowr keeno oo aanu habkii maamulka qashinka ka qayb qaata inaanu olole fayadhowr sameeyno marka oo toddobaadkii hal maalin oo aanu shaacin doono oo insha Allah taala rajaynayno sabtida saahan dambe ka bilaabmo laakiin maalin cayiman aynu sameynayno meelaha aynu ka duulayno annagoo kaashanayna bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ka u dambeeyo ah goobta qashin qubka la geeyo iyadana wax ka bedel ku sameeyno iyadoo nimka meesha qashin qubka joogta aanay u qalmin inay qashin qub noqotay magaalada koonaheedu la soo dhigo oo Burco ka qaad Burcagii una yahay insha Allah taala inay sidoo kale waxa uu maayirku bulshada ugu baaqay inay xoolaha ka saaraan magaalada Burco inta ka hadhay sanadkani si aanu markaa walaalayaal adeegin horumarineed looga baahnaa oo helo waxaan ka baahanaa kow ina cashuurta bixisaan cashuur la'aanta awadeed aan la maqadina waxay sababtay dawladda hoose bil walba inay ku jirto 300 milyan oo khasaara oo ay isbixin weydo waxa soo gala iyo qarashka ku baxay ay sideedihiin 300 milyan oo khasaara inay bil walba ku jirto marka waxaan ka codsanaynaa si aanu anaguna isu soo kabno oo bishan 7 laga bilaabo ilaa 8 ay qarashka iyaga iyo dakhliga iyagu ugu yaraan isla ekaadaan ina cashuurta bixisaan
annaguna waxaanu ballan qaadaynaa sanadka 6 bilood ee ka hadhay inaanu diyaarino nidaamkii lagu diiwaangelin lahaa magaalada, ganacsiga lagu diiwaangelin lahaa, gaadiidka lagu diiwaangelin lahaa, dhulka bannaan lagu diiwaangelin lahaa, dadkana lagu diiwaangelin lahaa insha allahu tacaala. inaanu annaguna intaas diyaarino deetana mustaqbalka dhow aanu dowladda hoose taqaano inta cid ay wax ku leedahay iyo nidaamka ay ku xidhiidhayso. qofka dibadda joogana nidaam bangiyeed oo uu ku soo bixin karo cashuur sanadeedkii dhulka ugu yaalay Burco isagana aanu hirgelin doono insha allah. dadka dhulka bannaan lehna baaq baanu direen ee ka maqan inay walaal cashuurtii soo bixiyaan oo dadka mulkiyadaha u haya guryaha ku haystaana ay ka soo bixiyaan cashuurta. haddii kale calaamad baanu marsan doonaa meesha bannaan ee aan reerna ku jirin cashuurta lagu leeyahay cid soo bixisa aan la garanayn. dadka xoolaha magaalada dhexdeeda haysta waxaanu digniin faraynaa oo inay 6 bilood ee ka hadhay sanadka ka qorshaystaan sidii ay xoolahooda magaalada uga basrin lahaayeen. 6 bilood ee sanadka ka hadhay walaalayaal ka tabaabushaysta sidii aad xoolihiina magaalada uga saari lahaydeen. dadka deerarka iyo dhagxaanta ay soo dhigeen waxaanu u qabanaynaa iyaguna muddo bila inay dhagaxa iyo ooda iyo deerka ay magaalada gudi gashadeen wadada dhexdeedii inay iyaguna kaga basristaan. ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.